gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdilaahi Abukar oo dhowrkii cisho ee laga soo gudbay socdaal ku joogay deegaano ka tirsan gobolka Sanaag gaar ahaaneed goobaha dhismaha jidka weyn ee Toobiya isku xidha magaalooyinka Burco iyo sidoo kale Ceerigaab ee xarunta gobolka Sanaag waxaana wasiirka iyo saraakiil wehelinaya kormeer ku soo mareen qaybo badan oo dhismo ka socdo xilligan halkaas oo shaqaalaha iyo sidoo kale gaadiidkuba jiibta iyo jaanta isla helay si muddooyinka soo socda loo munaafacadsado sidogtiin waxa inoo bilaami doona sanadka cusba ee 2020 marka haddaan mas'uuliyiinahay waxaanu garannay inaan soo qiyaasno shaqada baaxadda ay leedahay si loogu qorsheeyo waxqabadkeena 2020 ujeedada labaad waxa weeyaan waa in dhiirigelin shaqaalaha kulli marka muddo laga maqnaado waxa daruuri ah in xaaladooda nololeed isha la soo saaro marka waa kormeer anigu runtii uma arko wax weyn in layna dacaydeeyo amba beel naga sheego maalin dhaweedna waan ka hadlo sideedaba dhaqanka marka laga hadlayo xagga diinta islaamka waxa inta badan sheegtaa inay dadka munaafiqiinta dadka kaafiriinta dadkaas inay badan yihiin marka kulli inaynu inagu dib badan u arkamayno laakiin hal qodob un baanu leenahay runtii annagu waxaanu jecelnahay waxa iyagu xalaal iftiin baa la qashaa mashruuca iminka waddada Ceerigaabo labadii sannadood lacagta noo dhiibay waa lacag aad u xadidan oo $6 milyan oo doolar waxba dhaafsisnayn waxaanu qabanayna kulli way muuqdaan annagu 40 milyan ay kamaanu qaadanin xisbinaydu kamaanu furanin waxaanu jecelnahay haddaydan moral support nasiinayna inaad maaragtay inaad naga deegaysaan hagardaamada waxaanu jecelnahay kulley in badan oo wanaagsanimadu way ku jirtaa waxaan qirayaa shaqada halkan ka socota marka Soomaaliland laga hadlayo shaqada ugu ballaaran ku dhawaad 200 qof baa ka shaqeeya 200 qof kasta qoys buu ku sii xidhan yahay dad ilaa 200 qof ah ayaa laga yaabaa inay noloshoodu halkan ku xidhan tahay 8 kiiloomitir oo muddo 3 bilood ka yar lagu dhisay gobolladan iyo degmooyin dhan iyo maayaro dhan ayaa 2 sanadood waxay ku faanaan amba sanad ku dhaafaan 2 kiiloomitir dhisay inaguna qayb kamida oo shaqaale kooban ka shaqeynayaan waa qayb kamida ayaynu muddo 3 bilood 8 kiiloomitir ku dhisnay marka xagaa kale lagu darana waxa weeyaan waa 20 kiiloomitir ku dhawaada midna waan sheegay anagu waxaan u shaqeynaynaa waa Ilaahay dartii magac ku dooni mayno manfaacna kuma rabno waxaan jecelahay mas'uuliyadaanu qaadnay aanu ummadda u qaadaynaa inaanu Ilaahay baan wax kaga doonaynaa in lagu amaano ma doonayno inaan ku faanino ma doonayno Xamsada Baari Telefishinka Star Hargeysa.